السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليga soo dhawaada kusoo dhawaada channelkayga Mrs Fariixa channel. maanta waxaan sameysanaynaa xalwo subag oo 2 kiilo ah sameysanaynaa. soo dhawaada channelka subscribe dah, share iyo like iyo comment. halkan waxaan kusoo qaadanayaa biyihii aan ku karin lahaa xalwada. waxaan ku shubayaa halkan 10 koob oo biyo ah. 10 koob biyo markaan ku shubo halkan waxaan rabaa 2 kiilo oo xalwo inaan kariyo. waxaan ku shubayaa oo kaleete 8 koob oo sokor ah. marka 8 bakeeri markaan ku shubo waxa kale kor kaga darayaa oo gooni usoo qasayaa warango ama nasho, qofka siduu u yaqaano, oo lagu daro warangada xalwada lagu daro. marka sokorta iyo biyaha markaan si fiican iskugu sii walaaqa intay ii dabka ii saaran yihiin, waxaan rabaa inaan warangada walaaqdo oo soo qaso. marka waxaan soo qaadanayaa baaquli, waxaan kusoo shubanayaa warangadii. marka biyaha sokorta markaan si fiican isu dhex geliyo yaan rabaa inaan warangada ku daro. waxaan soo qaatay baaquli, waxaan u cabirnayaa koobka u horeeya kusoo shubtay. haddana koobka labaadna hadda ku shubayaa. marka 2 koob hadda kusoo shubay. waxaan ku qasayaa marka 2 bakeeri oo biyo ah. biyaha ku qasayo 2 bakeeri waaye. 10 bakeerina marka hore meesha kale kusii shubay. 12 bakeeri iyo half dambe oo caleenta aan kaga soo qasayo. intaasaan ku karinayaa. dad baa biyaha intaas ka badiyo, laakiin qiyaasta saxda ani aan ahaantayda isticmaalo intaas waaye. marka hadii marba 2 kiilo aad karinaysid, hadii aad ka yar kiilo aad karinaysid, qiyaastaas 10 bakeeri waa kala goynay. 5 kiilo waxaan ka dhigay 5 bakeeri camal. hadii aad ka sii yar rabtid waa sii kala goynay. hadii aad ka badan rabtid waa sii laba jibaarey. markaas iyada intii aad rabtid inteeda kale ku sii darsanay. marka saas waaye. marka hadda warangadii aan ku darsaday. marka waxaan rabaa wixii biyihii xalwadii sokortii wixii way isla wada yaalaan. waxaan gooni soo qasay kalar oo ku daray oo raba inuu isku bedelo kalar ahaantiisa. waxaan dib kaga soo darayaa haddana caleentii oo gooni soo kariyay oo soo miiray. yaa ayadana aan half waaye. half caleena soo karkariyeen dib uga darayaa. marka intaas hadda ku karinayaa. wixii kale oo subag iyo caraf oo choos iyo wixii lagu darayo kale waa gooni, laakiin qiyaasteeda waa intaas. marka intaana si fiican isu dhex gelinayaa. waan isku soo laabanayna insha Allah, isla arkeena. caleentii hadda soo waxeeyay half wax yar ka hooseysa. intaasaan hadda ku darsaday caleenta. marka wax kale hadda boodino inay soo karkartaa sugaaya. marka intay ka soo karkarayso waa sugeena insha Allah. waan si walaaqi si faxal warangada kaliya ee salka uga soo karin. inta iskala qabsanayso ee soo karkarayso inaa walaaqitaanka gacanta ku haysid waaye. xalwo waxaa waa muhiimadeeda inaa gacanta ku haysid inta ay ka soo karayso iskala soo qabsanayso. hadda anoo walaaqayo sidii ayadaad waxtaas way la soo qabsanaysaa, way soo karaysaa, way soo yara adkaanaysaa. marka saasay noqotay. mar hadday saa had soo karto karitaani waqti u baahan. marka daboola saaraya waa iskaga tagaya. marka oo waqtiyaa siinaya 20 daqiiqo camal ka maqnaanaya. si fiican u sii kare. marka had sal inay kaaga dhigto ma baqaysid, wili biyo leedahay way kare. marka hadda way kartay, wili karitaan waa u dhiman yahay, laakiin intii hadda hore sida hore maahan. hadda waxaan kusoo darsaday choos iyo heel shiidan iyo choos aan kusoo darsaday. marka 2 xabo choos ah iyo heel aan soo tumay, heel shiidan iyo 2 xabo choos aan soo tumay aan ku daray. choos kan diyaarsan oo caagadaha ku jira haystid oo isticmaali kartaa, laakiin ani kan oo caadiga soo tuntay aan ku darsaday. marka intaana sab fiican isu dhex gelinaa. waan walaaqayo, waan karinay. hadda si wuu buuxaa kor u jooga.
hadhow markay karto waxay tegaysaa hoos. markay karto biyaha iyo waxaa dhan ay dhuuqay hoosay tegi. marka intaana hadda si fiican isu sii dhexgelgelinaya insha allah. haddana subagaan ku darsanaya. hadda markay saan usoo yar karto waa inaad subag ku dartaa si uu ugu karo. subag sixinaan kusoo daray. marka subag waxaa sameynaya inaa ugu daraya qaybta markaan ku daro oo laqdo oo si fiican ugu walaaqo oo laqdo subaga ku baaba'do oo soo yar karta qayb kale haddana ku daraya. haddana qayb kale ku daraya. qayb ugu daraya. marka idinma tusi karo waxa fiidiyowga ugu dheeraanaya. waxaa intaana markaa si fiican isu dhexgelinaya. waa sugaya ayadana intay haddana kasii karayso. insha allah waa isla arkaynaa marka intay kasoo karkarayso. inaa saa u walaaqdo gacanta le asaa uga haysid waa maanta dhan waxay u baahan tahay qorigaas in saa loogu walaaqo miikahaas gacantaba ka dhaafin. marka intaasay u baahan tahay saas inaa u walaaqdid waaye. marka waa sugeynaa intay caadi xalwo caadi kasoo noqonayso markaasaa arkeyna insha allah isku soo laabaneynaa. daboolkaas saaraya. haddana subaga qaybtii labaadaan ku daraya. haddana qayb saddexaadaan dib haddana oga sii daraya. subaga isticmaalaya waa nus kiilo oo sixin ari ah. sixin lo-aad ma la dhahaa. sixin lo waaye. sixin lo-aad waaye. marka sixinka aad u caraf badan. sixin oo originaal oo fiican oo hadaa heshid oo nadiif ah. marka qaybtii labaadaan ku daray. marka sidaas haddana ku walaaqaya waan dhex gelinaya ilaa ay ka laqdo haddana ay ka dhamaysto. subagaas hadhowta way soo celinaya. markay bislaato subaga hadhow way soo tufee. marka sidaasaan hadda haddana daboolka ku saaraya. cabaarka bacdigu waan usoo noqonaya insha allah. haddana sidaasay noqotay iyada dhan xalwo usoo karkarihaysaa. hoosay u degtay digsigii hoosay sii tagtay soo maaragtid. marka way karaysaa wax yaraa u dhiman. waa sugeyna ayada weli waaye diyaar waa hadda laakiin weli waaye saliid hataa weli may soo tufin. markay soo tufto saliidda ka guraya. marka saliidda soo tufta hadeertaan markay saa isu daba raacda ayada ay kala harharayeen isdaba socsocoto diyaar waaye. marka saliiddina markaas kor ka soo tufayso soo maaragtid. saliidda dhan kore usoo tuftay. marka waa ka guray saliidii waxyar le hadda ku haran ka guraya. marka subagii dhamaana waa korba usoo tuftay. saliid maahan waxaa ku karinaya subag uu ahaa. marka waakaas ayada dhan saas isu raacaysaa. lagama sheekeyn karo marka macaankeeda iyo caraf waa kaaga daranba. marka xalwo subagtaan ku dhaha wax ka macaan ma laha. marka hadda diyaar waaye xalwadeena. saasaa la rabaa inay ayadan isu gudoonto oo hal mar isu raacdo. saxanka foornada bac soo saartay. bacdii oo aluminiumka oo magaceed baking-paper ma la dhahaa soo saartay. waan ku kala fidfiidinayaa. marka sidaasaan hadda kusoo dhameeyey. marka insha allah waxaan kor kaga darsanayaa sisin. markaan kaamirada jaraa soo xasuustay sisinaan kor kaga daray. marka waan kusoo laabanaya insha allah. markay qabowdo yaa kusoo laabanaya waayo intay kulushahay lama taaban karo. haddana way qabowday asxaabteyda qaaliga ah. waxaan rabaa inaan jarjaro. sidaasay kusoo baxday. marka adeeg oo dhagax ma noqonin. sida caadiga xalwo caadi noqotay wax oo kala dadaadanayna ma ahan. xalwo iska arg waaye maasha allah.
ma laga sheekeyn kara macaankeeda. Marka inaan midada ku jaraan rabo waa ku jari waaye, maqasaan u doontay. Marka maqastaan rabaa inaan ku jaro. Marka maqastaan ku jarnayaa oo waan diyaarsanayaa. Insha Allah waa isla arkaynaa iyadana sidii kusoo baxdo. sidaa quruxda badan inoogu soo baxda asxaabteeda qaaliga ah, xalwo aan laga sheekeyn karin macaankeeda iyo dhadhankeeda waaye. channelka subscribe dhah, share iyo like iyo comment. aad baa u mahadsantihiin. asxaab cusub oo badan aan arkaa. aad baan idinku mahad celinaya. asxaabta cusub waa idin soo dhaweynaya. intaa muuqaalka ku kulmayno.